11 Sebtembar 2001 oo ay ku beegneyd maalin Talaado ah, koox soo miidaamiyay ayaa afduubtay diyaarado rakaab ah oo Mareykanka laga lahaa. waxayna diyaaradahaasi la beegsadeen dhismayaal dhaadheer oo dalkaasi ku yaalay, waxayna ku dileen kumanaan qof. weerarkaasi ayaa noqday kii ugu xumaa ee dhacay qarnigan, argagaxna ku abuuray shacabka Mareykanka iyo shucuubta caalamka inta kaleba. 4 diyaaradood oo bariga dalka Mareykanka duulayay ayay hal mar wada afduubteen koox afduubayaal ah. kadibna diyaaradihii waxay u adeegsadeen inay ku weeraraan dhismayaal bartilmaameed u ahaa oo ku yaalay magaalooyinka New York iyo Washington. 2 diyaaradood waxay la beegsadeen dhismayaashii mataanaha ee New York oo xarun u ahaa hay'adda ganacsiga adduunka ee WTO. diyaaradii koowaad waxay dhismihii ugu horeeyay ku dhacday saacadda maxalliga ee Mareykanku markay ahayd 8:46 daqiiqo, halka diyaaradda labaadna dhismaha labaad lagu dhuftay saacaddu markay ahayd 9:03 daqiiqo. dhismayaashii diyaaradaha lagu dhuftay markiiba dab ayaa qabsaday. dadkii dhismayaasha sare ku jiray waxay ku xanibmeen dabaqyada sare. magaalada dhan qiiqa dhismayaashaasi ka baxayay ayaa qariyay. wax ka yar 2 saacadood markii ay dhismayaashaasi gubanayeen, waxaa gebi ahaanba soo dumay 2 dhisme oo uu midkiiba ka koobnaa 110 dabaq, waxaana isqabsaday uurada burburka dhismayaashii ka dhashay. saacadda maxalliga ah ee Mareykanku markay ahayd 9:37 daqiiqo, diyaaraddii saddexaad ayaa lagu dhuftay galbeedka dhismaha Pentagon oo ah xarunta looga arrimiyo ciidamada Mareykanka oo ku taalla magaalada Washington. dadkii weerarkaasi ku dhintay waxa ay ahaayeen 2,977 oo aan lagu darin 19 qof ee weerarkaasi geystay. intooda badanna waxay ku dhinteen magaalada New York. dhammaan 246 rakaab ee 4taasi diyaaradood saaraa kulligood waa ay geeriyoodeen. dhismaha mataanaha ee New York waxaa ku dhintay 2,606 qof, iyadoo ay dadkaasi qaarkood ay u dhinteen dhaawacyo weerarkaasi ka soo gaaray. Pentagonka waxaa ku dhintay 125 qof. dadka weerarkaasi ku dhintayna waxay ka soo kala jeedeen 77 dal. weerarka kadib waxaa ku dhaawacmay kumanaan qof oo intooda badan ay ahaayeen shaqaalihii dabdamiska iyo kuwii gurmadka. Khalid Sheikh Mohammed oo ah dagaalyahan Bakistaani ah oo loo arko inuu yahay ninka wax ka soo abaabulay weerarada, ayaa la yimid fikradda ah inuu islaamiyiinta u tababaro duuliyayaal, iyadoo ujeeddadu ay tahay inay afduubtaan diyaaradaha oo ay u adeegsadaan sida hubka ayna ku weeraraan Mareykanka. qorshahan waxaa saxiixay oo oggolaaday hogaamiyihii Al-Qaacida oo ahaa maalqabeen u dhashay Sacuudiga oo in badanna ay raadinayeen hay-adaha sirdoonka Mareykanka, kaas oo markii dambe noqday ninka loogu doonis badan yahay dunida oo dhan. waa Osama bin Laden. 2,996 qof ayaa ku dhintay weeraradii 11 Sebtembar. xarunta ganacsiga ee adduunka New York 2,763 qof ayaa ku dhintay. Pentagonka Washington DC 189 qof ayaa ku dhintay. duulimaadkii United Airlines tirsigiisuna uu ahaa 93. Pennsylvania waxaa ku dhintay 44 qof. tirada dhimashadana waxaa ku jira kuwii afduubka geystay. maalintaasi waxay kaloo calaamad u tahay khasaaraha ugu weyn ee soo gaaray shaqaalaha samata bixinta ee taariikhda Mareykanka. magaalada New York oo kaliya 343 ka mid ah dhimashadu waxay ahaayeen kooxihii dabdamiska. waxaa intaa dheer
ilaa iyo 40,000 oo qof ayuu saameyn ku yeeshay weerarku. cawaaqibkii ka dhashay weeraradii 11 Sebtembar weli waa la dareemayaa ilaa maanta. baacsigii Maraykanka ee Osama bin Laden ayaa horseeday duulaankii Afghanistan, halkaas oo Al-Qaacida ay gabaad ka dhigatay. kooxda Al-Qaacida ayaa la sheegay inay weerarka ka soo qorsheeyeen dalka Afghanistan. weerarkaas oo la sheegay inuu hogaaminayay Osama bin Laden oo Maraykanka iyo xulafadiisu ay ku eedeeyeen inay dunida muslimka dhibaato ku hayaan iyo adduunka intiisa kaleba. 19 qof ayaa weerarkaasi geysatay, iyagoo isu qaybiyey 3 kooxood oo min 5 qof ah iyo koox 4 qof ka koobnayd, kuwaas oo watay diyaaraddii ku dhacday Pennsylvania. 4 kooxood ee weerarkaasi geysatay, koox waliba waxaa la socday 1 qof oo leh tababar duuliyanimo. raggaasina tababarka duuliyanimada waxa ay ku qaateen dalka Maraykanka. 15 ka mid ah dadkii weerarkaasi geystay waxay u dhasheen dalka Sacuudiga. 2 kalena waxay ka soo jeedeen isutaga Imaaraadka Carabta. midna waxa uu ka soo jeeday dalka Masar, halka qofka 19aadna uu ka soo jeeday dalka Lubnaan. weerarkaas markii ay ka soo wareegatay wax ka yar 1 bil, madaxweyne George W. Bush wuxuu qaaday duulaankii Afghanistan isagoo oo kaashanaya xulafadiisa si ururka Al-Qaacida xididada loogu siibo ee uu hogaaminayay Osama bin Laden. si kastaba ha ahaatee, ciidamada Maraykanka waxay bin Laden heleen oo ay ku direen dalka Bakistan oo daris la ah dalka Afghanistan. Khalid Sheikh Mohammed oo ah ninka lagu eedeeyay weerarkaasi inuu soo agaasimay ayaa 2003 lagu xiray dalka Bakistan. tan iyo waqtigaasna wuxuu ku jiraa xabsi Maraykanku leeyahay, isaga oo weli in maxkamad la soo taago sugaya. ururka Al-Qaacida ayaa weli jira, wuxuu si aad ugu xoogan yahay wadamada saxaraha Afrika ka hooseeya. ciidamada Maraykanka ayaa sanadkan dalka Afghanistan ka baxay ku dhawaad 20 sano markii ay ciidamadiisu dalkaasi ka howlgalayeen, taasoo abuurtay in cabsi laga muujiyo inay soo noqdaan shabakadihii Islaamiyiinta. weerarkii 11 Sebtembar waxa uu dhaliyay raadad badan. sanado badan waxaa si aad loo adkeeyay ammaanka duulimaadyada caalamiga ah wixii ka dambeeyay weerarkii 11 Sebtembar 2001. dalka Maraykanka waxaa laga asaasay hay'ad maamusha ammaanka gaadiidka si loo adkeeyo ammaanka gegida diyaaradaha iyo diyaaradaha duulimaadyada sameynaya intaba. nadiifintii burburka dhismayaasha mataanaha waxay socotay muddo 8 bilood ah. taallo iyo madxaf xasuus ah ayaa laga taagay goobtii ay dhismayaashaasi ku yaaleen. 20 sano ayaa ka soo wareegatay weeraradaas lagu qaaday Maraykanka. ka bixitaanka Maraykanka ee Afghanistan toddobaadyadii ka horreeyay sanad guurada waxaa ka muuqday rabshado iyo jahwareer hor leh. Taliban ayaa mar kale ku soo noqotay awoodda, waxayna hadda xukumaysaa dalka Afghanistan 20 sano kadib. howlgalkii Maraykanka ee Afghanistan si rasmi ah ayaa loo soo afjaray. Maraykanka iyo Talibanna waxa ay gaareen heshiis in ay isnabadgeliyaan. haddaba haddaynu dhinac kale ka eegno, waxaa jira hay-ado, aqoon-yahano iyo hogaamiyayaal aaminsan in hay'adda sirdoonka Maraykanka ee CIA-du ay iyadu ka dambeysay qaraxyadii 11 Sebtembar oo ay soo abaabushay iyadoo Maraykanku uu dana ka lahaa arrintaas. hogaamiyaasha arrintaas aaminsan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore ee Malaysia Mahathir Mohamad. daraasad la sameeyay bishii December ee sanadkii 2018 ayaa muujisay in 21% ka mid ah dadka da'doodu ay ka hooseyso 35 sano ay aaminsan yihiin in Maraykanku uu si ugu lug lahaa fulinta weerarkii 11 Sebtembar.